wadahadalo la doonay in lagu sii daayo badmaaxiin masaari ah oo laga afduubtay meel u dhow xeebaha Soomaaliya ayaa hakad galay kadib markii uu khilaaf ka dhashay lacagta madax furashada ah sida ay sheegeen qoyska qaar ka mid ah badmaaxiinta afduuban sida ay wararku sheegayaan waxa hore loo gaaray heshiis hordhac ah oo dhigayay in la bixiyo 2 milyan oo dollar si loo sii daayo markabka shaqaalihiisa hase yeeshee milkiilaha markabka ayaa sheegay in uu dib uga laabtay heshiiskaas isagoo soo jeediyay in lacagta laga dhigo 500,000 dollar arintaas oo sababtay in wadaxaajoodii dib ugu laabtaan halkii ay ka bilowdeen Akram Mukhtar oo aabaha mid kamid ah saraakiisha markabka ayaa sheegay in wadaxaajoodii ay marayeen heer gabagaba ah balse isbedelka uu ku yimid heshiiska uu sababay xiisad cusub isla markaana uu sare u qaaday walaac laga qabo badqabka shaqaalaha markabka ee afduuban dhankiisa Umar Akram oo ah walaalihiin mid ka mid ah badmaaxiinta la heesto oo lagu afduubtay meel u dhow xeebaha Soomaaliya ayaa sheegay in dib u furista wadahadaladu ay xaaladda si adkeysay isagoo ugu baaqay mas'uuliyiinta Masar iyo dhammaan dhinacyada ku lugta leh inay dejiyaan xal lagu sii deynayo badmaaxiinta wasaaradda arrimaha dibadda dalka Masar ayaa sheegtay inay wado wadaxaajoodyo heer sare ah oo ay la leedahay dhinacyada ay quseysay ee Soomaaliya ee u afduuban markabka iyo sidoo kale shaqaalaha masaarida ah si loo hubiyo badqabka badmaaxiinta loona dejiyo sii deyntooda wasaaraddu waxay intaas ku dirtay in safaaradda Masar ee Muqdisho ay si joogto ah ula xiriirayso mas'uuliyiinta Soomaaliya isla markaana la sameeyay hanaan ay qoysasku kula xiriiri karaan eheladooda si ay ula socdaan xaaladooda markabkan shidaalka ayaa la afduubtay horraantii bishii May xilli uu marayay meel u dhow xeebaha Yemen waxaana tan iyo 2 May saarnaa 12 badmaaxiin oo la heesto kuwaas oo ay kala yihiin 8 masaari ah iyo sidoo kale 4 Hindi ah afduubkan ayaa dib u soo nooleeyay walaac laga qabo amniga maraakiibta ganacsiga ee marambiyoodka muhiimka ah ee u dhaxeeya badda cas gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya inkastoo dhacdooyinka burcad badannimadu ay si weyn hoos uga dhaceen sanadihii la soo dhaafay haddana qobarada amniga ayaa ka digaya kooxaha hubeysan in ay weli awood u leeyihiin inay fuliyaan weerar lagu bartilmaameedsanayo maraakiibta ganacsiga marka ay helaan fursad ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo sheegaya goorta dib loo bilaabi doono wadaxaajoodida ama in dhinacyadii isku soo dhawaadeen hase yeeshee qoysaska badmaaxiinta la heesto ayaa sii wada baaqyada ay u dirayaan dowladda Masar iyo beesha caalamka si loo dejiyo sii deynta eheladooda iyagoo ka cabsi qaba in hakadka ku yimid wadahadaladu uu sii dheereeyo muddada ay afduub ahaan ugu jiraan